warar dheeraad oo laga helayo kulan ay xalay Muqdisho ku yeesheen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynayaasha maamulada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo kan Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa la sheegayaa in la gaaray isfahan hordhaca. kulankan oo ka dhacay guriga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda cakiran ee xilligan uu marayo dalku iyo muddo korinta ay golaha shacabka Soomaaliya u sameeyeen hay'adaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. warar dheeraad oo ogaaday telefishinka Sahan, madaxweynayaasha Qorqor iyo Cali Guudlaawe ayaa u cadeeyay madaxweynayaashii hore ee dalka inay ka soo horjeestaan muddo korinta loo sameeyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa labada madaxweyne ee Galmudug iyo Hirshabelle ku cadaadiyay inay si cad warbaahinta ugu sheegaan mowqifka ku aadan muddo korinta, isla markaana aysan iyaga ka warqabin waraaqdii la sheegay inay ka soo baxday madaxtooyada, balse lagu sheegay inay ahayd mid ay si wadajir ah u soo saareen maamul goboleedyada taabacsan dowladda Soomaaliya. xubnaha mucaaradka ayaa u arkay Axmed Qorqor iyo Guudlaawe wadada kaliya ee looga hortegi karo muddo kordhinta uu samaystay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. kulankan oo ahaa mid hore labada dhinac ay ugu ballameen markii shirar gaar ay yeesheen ayaa la filayaa inay si wadajir ah go'aan uga gaadhaan arrinta muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo uu sameeyay golaha shacabka Soomaaliya. habeen ka hor warbaahinta dowladda ayaa faafisay warqad laga qoray madaxtooyada taas oo lagu muujinayo in saddexda maamul goboleed ee taabacsan dowladda federaalku ay taageersan yihiin muddo kordhinta, balse Galmudug ayaa dib ka beenisay warqadaasi, waxaanay sheegtay inaanay wax luga ku lahayn warqadaasi. madaxweynaha Galmudug oo u muuqda mid aan ogolayn muddo kororsiga Farmaajo haddana waxa uu ku dhiiran la'yahay inuu caddeeyo mowqifkiisa marka laga reebo inuu marar warbaahinta ka sheegay inaanu taageersanayn muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo uu sameeyay golaha shacabka ee Soomaaliya. Axmed Daahir Nuux, nasabka Sahan TV.